دستورك الصومالي wax laga bedelay براني دستور سوماليا meeshaan ugama jeedayo waxaas anigu Puntland baan joogaa waxay tiri Soomaaliya anu kama midniin kaam ku saxan tahay waxa aniga igama galin qabyaalad iyo dawlad iyo waxa ay galin aniga waxay galisaa deeqa samtel baa la dhahaa kaararka samtel baan wadaa 4G plus oo internetka aad iyo aad ugu wanaagsan weydiin samtel kuma weydiin soo dhaw qofiyay kaararka samtel baa wadaa weydiin sister دستورك الصومالي wax laga bedelay waa free kaarka kuma dhihin lacag buu yahay kaarka ma weydiin kaarku waa lacag la'aan gabadhan aad u jeedaan deeqa maxamed muuse ayaa lagu magacaabaa laakiin deeqa somtel ayaa loo yaqaanaa kadib markii gabar wardoonaha ay weydiisay su'aalo siyaasadeed ee iska diiday keliyaan ay kusoo gaabsatay somtel ayaa hayaa makaagada dastuurka Soomaali waa ansix ma kala socotaa freeway somtel ka war miig gadanaysa Puntland Soomaali waa ka gooday ka waran war aniga waxaas waxbiga ma gelinay somtel ayaa hayaa miiga gadanaysa intaas afkeeda waxaan hayn waa soo dhaafway waxayna dirtay shaqo jaceyl fariinaha ayay dirtay isla markaasna Soomaalida baraha bulshada isticmaaliyay qof walba shirkadii u shaqeynayay oo somtel qaybta Puntland hal meel buu laga meeshin gareynay war gabadhan abaalmarsiye war gabadhan dalacsiye war gabadhan gabar caadi ma war irij badan ay heesa magaceeda xataa somtel ay ku darsatay barihi bulshada ay isqabsaday heer Soomaalida waxay gaarsiiyeenba shirkadii ay soo hadashay gabadhan sawirkeeda soo qaadato isla markaasna abaalmarin degdega dalacsiin degdega ay ku dhawaaqaan oo fiirsada Soomaalida siyaasadda waa ku meelayiin shaqada iyo siyaasadda ma kala saaraan laakiin gabadha waxay noqotay gabadhii ugu horeysay oo shaqada iyo siyaasadda kala saarta ayay noqotay shaqada iyo siyaasadda kala saarta ayay noqotay ugu dambeynna shirkadu waa dalacsiisay Soomaalida ayaana ka dambeeyay baraha bulshada isticmaasha kadib markii shirkadda meel waliba xal laga meeshin garay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawud kullu wacan oo hagaagsan meel waliba joogtaan maantana موضوعنا داوديال وحو قصية قبل إيمانك هذا ركتين أما موقال كان وحو قصية قبل إيمانك هذا ركتين هساتي انت فاهمتو جود جلين كور لبعتن كيكون واكد جود من السبسكرايب صدق كيكونوا سبسكرايب يدي إنا نحتاجنانو أي رجينينا موقال كان لاجنا ده إنه شير جري واته داوديال قبل إيمانك هذا ركتين أو سهر دعوة ركتين دقيقة محمد موسى يالي هذا لكن مقعدة وعكار مريسي دقيقة صمت لا يكار مريسي gabadhan waa internship marketing wax la yiraahdo weeyaan waa ardayda jaamacadaha soo dhameeyay isla markaasna marketingka loo tababaro weeyaan shirkadda qaybta somtel Puntland ayay daawadayaal kool gashaa waxaana isqabtay iyadoo gabar wardoona oo siyaasad raadinaysa ayaa isqabtay kulan weyn ayaana ka dhacay kulan weyn oo aan la filayn ayaana goobtaas ka dhacay gabadha daawadayaal iminka sida hordhacad ku arkayseen su'aalo siyaasadeed ayaa la weydiiyay way kamid yihiin dastuurka Soomaaliya la ansixiyay maxaad ka ogtahay Puntland Soomaaliya inay ka gooday maxaad kala socotaa kaliya afkeeda waxa laga soo saari waay waxaan ahayn somtel ayaa hayaa miiga gadanaysa kaarar free ayaa hayaa miiga gadanaysa shirkadda somtel ku soo dhawow war anaga siyaasadda hay gelinin somtel kaliya somtel waxaan ahayn afkeeda daawadayaal xal waa laga soo saari waay gabadhii wardoonaha ayaaba yaabtaba dastuura la weydiina somtel aadi Puntland Soomaali ka godaaya le kar free ay aadi gabadhan daawadayaal waxay dirtay fariin ah oo Soomaalida ka baran karayaan in shaqadii siyaasadda la kala ilaaliyo sidaad ogtihiinba 10 sano ama 20 sano ugu dambeysay Soomaalida siyaasadda waa ku milmeen macallin iskuul adin macallin dugsi adin tababar jaamacad adin qof kale muruqmaal hadeen qof iska normal hadeen qof shacab oo baaga muddo wada iska fadhiya hadeen cid waliba waxay kula ra'iisul wasaaraha madoole madaxweynaha maanta muxuu yiri qarax halkoo ka dhacay xildhibaankii maanta hadlay dastuur ma laga hadlay Puntland ma Soomaali ka gooday Soomaaliland ma xitri Abiy Ahmed muxuu yiri bas ilaahi dhaqaalaha dalka wax ka sheekeynay markiis horumarka dalka wax ka sheekeynay markiis wadooyinka la dhisay wax ka sheekeynay markiis bilicda daaraha wax ka sheekeynay markiis dhirta la abuuriyo wax ka sheekeynay markiis roobka daay wax ka sheekeynay markiis madaxweynaha dowladda ra'iisul wasaaraha baxay xildhibaan asan yiri dastuur bis qarax waa ka bis laakiin gabadhan fariina waxay dirtay war siyaasadda shaqooyinka kale ilaaliya cid waliba ayayna taabanaysaa fariintaas
dadka magaalada muqdisho ku nool dadka gobolada ku nool dadka tuulooyinka ku nool dhammaan fariintan daawadayaal iyaga ayay ku socotaa oo deeqo somtel fariina waxay dirtay war siyaasadda iyo shaqooyinka kala ilaaliya war waxaad heesaan iyo siyaasadda kala ilaaliya qof waxaad arkaysaa daawadayaal wuxuu bartay tusaale waxyaabo kala duwan oo bartay qof tusaale waxyaabo kala duwan ayuu bartay laakiin wuxuu jecel yahay inuu siyaasadda ka hadlo agriculture bartay siyaasadoo ka sheekeynaya economic bartay siyaasadoo ka sheekeynaya engineering bartay siyaasadoo ka sheekeynaya how dadku marka waxaad moodaa inay tababar dheer u baahin soomaalidana maba dhawooba gabadha marka daawadayaal fariinta xalay ay dirtay waa fariin Soomaali kicinaysa ugu dambeynna way ku guuleysato shirkadii u shaqeynayso inteeshi marketing ku heed oo daawadayaal oo xataa gabadhaasi aan hoos u fiirin weligeed ayaa soo dalacsiisay shanta Soomaali meel bay joogaana gabadha maanta way baratay gabadhan way baratay oo mid kalena shirkadaha caadiga ah ee Soomaaliyeed meel bay joogaan waxay ka sameeyeen dadka inteeshi marketing la yiraahdo inay biyaabitaala u weereenayeen inay transportation u weereen ka bixin dhammaan waxay ka sameeyeen in dadkaas daawadayaal shaqadooda daawadayaal ay ku dhibaan markaas wadooyinka lagama mari karayo goobaha caadiga nasiinada lagama joogi karayo iyagu kaar wata ay ku soo galayaan iyagu waxyaabo kala duwan wada ay ku soo galayaan dhiiska ka muuqanaya kabaha burkooda ka muuqanaya ma maleekaris u fiirso shirkad weyn ama company weyn ama bangi ay ka socdaan iyagana daalkii duruufta ka muuqato ma maleekaris iyagana dantii duruufta ayaa bidayso waa fresh oo jaamacada ay ka soo bixin waa shaqadoon shaqadani waxay ku xiran tahay inay daawadayaal qoraxda wareegaan inay dadku wadooyinkeena ka fadhin adoo mashquulsan oo telefoonka hadlaysa lagu qabanaa lagu leeyahay kaarkan ka baahay walaay mastercardkan shirkad bangi hebelan ka socda waa ka marka dhalinyarada intention marketing ayaa la yiraahdaa laakiin kambaniyada iyo shirkadaha waa danaystayaal oo ayagu dhalinyaradan kor uma soo qaadaan wiilasha iyo gabdhaha kor uma soo qaadaan laakiin gabadhan afkeeda ayay wax ku kasbatay in kambanigii ama qoladii u shaqeynaysay ay isbartay ayay daawadayaal keentay marka gabadhani waxay keentay qorshaha ama hindisaha in kambanigii u shaqeynaysay iyada ay isbarto kadib markay daawadayaal nasiib ku saamaxay gabadha wardoonaha iminka muuqaalka hordhacood ku arkaysiin oo weydiisay su'aalo siyaasadeed iyaduna ay ku gaabsatay inay waxaas waxba ka gelin kaliya kaararkaas ay ka gadato kambaniga u shaqeynayso Somtelna wuxuuba isaga naftigiisa u sameysaba daawadayaal marketing oo ah maadaama kilibkan Soomaali dhan daawadayaal wareejinayso waxay u sameysay marketing kala in kambanigaas daawadayaal magaciisa la wado u fiirsada laba shaqo ay qabat mid waa tii iyada heesay midna waa midan kalo kilibada la wareejinayo waa anada marketing weeyaan game mine ayaa la yiraahdaa sheekada marka game mine ayaa la yiraahdaa gabadhana nasiibku wuxuu saamax marka in kambanigi ay markan hoos u fiirshaan soo dalacsiyaan abaalmarin siiyaan isla markaasna poster loo sameeyo magaceeda lagu xardho magaceedu saddexan ee naasteeda iyo abaalmarintii waa ka wada marka wax badan qorax way wareegtay wax badan oo waadili wax badan guriyo waa gargaraacday wax badan wadooyinka waa laga mari waayay laakiin ugu dambeyn nasiibkeeda ayaa daawadayaal u heliyay oo gabadhaas ayaa Ilaahay u soo diray waata daawadayaal deeqo Somtel marka Soomaalida maxay ka baran karayaan in siyaasadda iyo shaqooyinka la kala ilaaliyana fariin noocay ay daawadayaal Soomaalida gabadhan gaar ahaan ka sii baran karayaan ma kula sii tahayna haddii gabadhan daawadayaal fariinteeda si sax loogu dhaqmana in Soomaali dhamaan ay ugu dambeyn wada bulaali doonaan aragtida soo gudlaag dhamaadkada soo gaartan muuqaalka laakiin maamin sina share gareyn